xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu markii ugu horeysay shaaciyay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro maalintii shalay ahayd ka qaaday ilaaladiisii khaaska ahayd taas oo ay ku tilmaameen nasiib darro xogayaha baabulka ee xisbiga mucaaridka ee wadani siyaasi Cabdilaahi Geeljire waxa uu sidoo kale u cadeeyay in maalintii shalay ahayd ilaa iyo saaka ay gudi dhexdhexaadi ka dhaxwaday xukuumadda iyo xisbigooda isla markaana iyaga oo tixgelinaya codsiyada ergooyinkaas ay ku wargelinayaan taageerayaashooda gobolka Murudijeex in ay hakiyeen isku soo bixi ay maanta ku iman lahaayeen xarunta magaalada Hargeysa balse gobolada kale ay xarumahooda maanta iskugu iman doonaan oo aan la hakinin Cabdilaahi Geeljire oo arrimahan si faahfaahsan uga hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa waxa ogtiin maanta afayeenka xisbigu wuxuu xiran yahay xogayii wuxuu xiran yahay madax kale oo xisbigaana xarigooda noo sheegay marka maanta halkan waxaan ka doonayaa inaan fariintan idinku yeedhay tahay marka ugu horeysa inaan u mahadnaqo taageerayaashii xisbiga sida ballaaran u yimi xafiiska shalay kulankii aan ugu yeedhnay ee sharciga ahaa ka soo qayb galay inaan mahad ballaaran oo aan xisbiga madaxdiisa iyo gudoomiyaha uga sido aan u soo gudbiyo marka labaad aan ummadda reer Somaliland iyagana ugu mahadnaqo una soo jeediyo isku duubni iyo wada jir iyo inay walaalnimadooda ka shaqeeyaan qarankooda iyo xornimadoodana ay meel joogaanba difaacdaan fariinta aan sidaa wax weey saaka ilaa xalayto waxaan soo gaariyay ergooyin reer Somaliland oo ka kooban culimo ganacsato madaxweyne ku-xigeenyaal hore madasha xisbiga kale mucaaridka ucid oo aanu isbahaysi mucaarad nahay ergooyinkaas oo naga dalbanayay inaanu hakino mudaharaad ma isu soo baxi raalaha ereygaas hadii goraal qalad laga fahmaa Soomaalidu mudaharaad ma taqaana isu soo baxi aan ugu yeernay in xafiiska ay yimaadaan taageerayaashayadu sharciga ahaa inaanu hakino oo aanu ka aqbalno ergo inay cabashooyinkeegana eegaan arrinkana ay galaan inoo wada yaala dhamaanteen waa caadadeena reer Somaliland inay wixii ka dhiman ama ay ku kala cabato ama ka qaldama ay gudaheeda ku saxato anaguna mabdaa xisbi ahaan kama weynin waanu ka aqbalay sidaa daraadeed waxaanu joojinay oo hakinay maanta baaqii oo gudoomiyuhu ugu baaqay in Murudijeex ay mar labaad isugu yimaadaan taageerayaasha xisbiga xafiiska sidaa daraadeed halkan maanta taageerayaashii iman maayaan waxa jira gobolada kale sidii loogu baaqay way hadalkaas hore u baxay meel laga soo celiyay ma lahayn sidii loogu baaqay ayay u soconaysaa maanta sidaa daraadeed waxaan dhammaan taageerayaashayada iyo gobolada Murudijeex iyo gobolada kale oo sheegaynaa inay ku mahadsan yihiin siday noo dhageysteen inay ku mahadsan yihiin
inay qarankooda heegan ugu yihiin ka shaqayntiisa iyo ilaalintiisa wixii wareeg kalena markay bilaabmayso sidii awal baan warbaahinta ugu soo marin jirnay iyo xiriirkii aan tooska ula lahayn ee noo gaarka ahaa baan u marin doonaa waxa kale oo halkan idinku sheegaya sida aan tilmaamay bilowga hadalka xarig baa jiray xukuumaddu ay iska xidhay madaxdii xusbiga waxaynu dhaqan u leenahay maaha sharcina uma aragno waxa kale oo ay waxaanu leenahay degdeg loo sii daayo xorriyadoodina loo soo celiyo iyadoo shuruud la'aan waxa kale oo jirta oo ilaa xalay socotay inay xukuumaddu ilaaladii gudoomiyaha xusbiga wadani ay doonayaan inay qaarna ka haysteen qaarna ka qaadayaan oo ay leeyihiin soo baxa qaarna ay doonayaan inay xidhaan arrintaa waxaan u aragnaa inay tahay un kicin kale gudoomiyuhu in nabadgelyadiisa la ilaaliyo oo si sharciya loo ilaaliyo oo ciidanka qaranka uu ilaaliyo xaq buu leeyahay xusbiyaduna xaq bay u leeyihiin waxaanu arrintaana sheegaynaa inay xukuumaddu ka noqoto oo aanay sii buunbuunin oo aanay wax kaloo kicin iyo muran kale oo inagu bilaabma aanay gelin ee ay faraha ka qaado waayo qofku dee si unbay soo ilaalinaya haddii dowladda sharciga waa ilaalin weydo oo nabadgelyadiisa ay dowladda ay naga wada mas-uulasha nabadgelyadeenna dee sidii kale waa madaxweynuhu u dhigmaa gudoomiyaasha xusbiyadu iyo madaxda sare xukuumaddeennu iyo dowladnimadeennu waxay leeyihiin maamuus iyo in la ilaaliyo waa ogtihiin gobolkan aynu ku noolahay nabadgelyadeennu ta guduhu laga ilaalinayn maaha si kasta oo ay wax u dhici karaan in la ilaaliyo la dhowray u baahan yihiin marka waxaanu leenahay xukuumadda uma baahnidin annana uma baahnin inaad kor u sii qaadaan arrimaha qaarkood waa muran nooc kale ah haddana ina gelisaan inaad iska kaaya xigsiisaan dowladdaanu anagu idiin dhiibanay oo ay u qaadataan inay idinku leedihiin oo saaad doontaan ka yeeli karaysaan waxaanu idin leenahay ka jooga dowladda waa noo shaqaysaan waxaad nagu ilaalinaysaan nidaamka waxaad nagu ilaalinaysaan sharciga waxay noo ilaalinaysaan nabadgelyada laakiin ha isu qaadanina inay laba kooxood oo cadowga nahay oo idinkuna dowladda leediin anaguna kuwii laga ilaalinayaan waa qalataas caqligiinu ha shaqeeyo wax kaloo inagu sii abuura muran iyo buuq uma baahnin baan leeyahay aan xigmad aan ku wada shaqayno dhammaanteen waxaan loo baahnayn iyo inaan ku murmin askarta ilaalada gudoomiyaha xisbiga wadanina waxaan leenahay sideeda ha loo daayo waxa kaloo aan doonayaa inaan cambaareeyo xadhiggii ama liisankii lagala noqday home cable iyadoo kuwii hore aynu ogeyn hadhwanaag news shalayna la yidhi waxaa lagala noqday waxaa la xidhay home cable saxaafaddu sidaynu ognahay waa lugta afraad ee miiska qaranku ku taagan yahay marka la fulin la sheego marka garsoor la sheego iyo marka sharci dejin la sheego qaybta matasha shacabka iyo xukuumadda iyo dowladnimada inteeda kale lugta kale matasha waa saxaafadda saxaafadda ayana waajib baa saaran xaqna way leeyihiin labadaa in la isku ilaaliyaa loo baahan yahay xaqooda la ilaaliyo iyana ay waajibkooda ay ilaaliyaan
dhismaha qarankana qayb bay ka soo qaateen dadkana iyo xukuumadda ama dawladdana cidda u dhaxaysa weeye ee u noqonaysa xidhiidh gaadhsiisa wixii wanaagsanna u sheegta ee u qabsoomay wixii ka qaldamana si loo saxo dibadda u soo saarta ma geeyaan xadhig ma geeyaan cagajuglayn ma geeyaan in sida imika muuqata kolba dadka loo diro guryahooda askar oo gurigaaga askari baa garaacay la yiraahdo haraasmadkaas waxa aan isqabanayn madaxweynaha dalka Muuse Biixi Cabdi iyo arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed waxay ku faanaan inay soo halgameen inay u soo halgameen xorriyadda dalka inay u soo halgameen madax bannaanida inay u soo halgameen xuquuqul insaanka inay u soo halgameen xorriyadda saxaafadda maanta waa nasiib darro in iyagoo kursiga fadhiya ay noqoto intiiba qaar iyaga hoostooda ku dulman inay noqdaan oo arrimahaas oo dhammeeya hoostooda ku dulmanaadaan isma qabanayso inay waana waxaan iyagana u habboonayn taariikhdoodana u habboonayn waxaan leenahay uma baahnidin inaad waddadaa martaan ka soo noqda baan leenahay faraha ka qaada saxaafadda haddii ay saxaafaddu ay xeer meel kaga dhacdeen xeer bay leeyihiin hala mariyo Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka Kaylis News magaalada Hargeysa